taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Sool gaashaanle Jaamac Aadan Iile ayaa maanta si rasmi ah loogu wareejiyay xilkii taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool. munaasabadan ay xilka kula kala wareegayeen ayaa waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan saraakiisha ammaanka ee gobolka Sool. ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay kusumihii taliyaha qaybta booliska Taliya Casayr isagoona sheegay inuu si rasmi ah ugu wareejiyay xilkaasi taliyaha oo isagu si kumeel gaar ah u hayay isagoona shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka booliska. xafiiskii qaybta booliska tiyaan joognay gobolka nabadgelyo boqolkiiba boqol shacabka oo nala shaqeynaya aad adeerto aan xuluuleejintii ciidamada iyo waxaanu soo dhamaynay adeertantii xafiiska ku jirno waynu joognaa dimeel kale aadmayno oo shaqada sidoo ma soconaysaa ama saraakiil ha noqotay ama qaybteena ha noqotay shacabka waliba aad iyo aad noo shaqeeya boqolkiiba boqol nabadgelyada magaalada aad taama adeertaa kusoo dhow. gabadhii taliyaha cusub ee qaybta booliska gaashaanle Jaamac Aadan Iile ayaa sheegay inuu la shaqeyn doono bulshada uuna noqon doono mid dhex u ah maadaama taliyayaashii hore